madaxweyne xasan sheekh maxamed marka waxa uu socday sidii waxyaabaha Itoobiya ay ku hamiyeysay iyo danaha ay leedahay meesha looga saari lahaa dalalka midowga Afrika maxaan ku idhaahdaa to magacooda uu ku shaqeynayo hawlgalka soo socdaana dawladda Soomaaliya dareenkeeda si dhaba in loo gudbiyo iyada oo waliba ay dalalka dariska ee ciidamadu ka joogaana ugu yaraan kala badh hal dheeri ay aragtida la qabaan marka madaxweynuhu waa ku guuleystay بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بضاع وضيال كسر هذا برنامج كان يدب كهذا وقضب كان ينكوي يجي دونه مدحوينها الصومالية حسن الشيخ محمود أي وحى وصفرقوا صومري دلالك أي عندما ذو كتشوغان صوماليا كارهانا هولقال كان أتمس هذا بقى وحين فيرين دونا بالصعود كاسي يوجدوين ككدن بي وحدين عيقا فردية جامعة قلت جامعة زرور ما شاء الله حسن الشيخ محمود دلال دوره صامري والسفر كيسي وجدوين كقدامه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمدة الصوماليات ميل كستي وأجوكتو حن الله سلام الله عليكم مدحويني حسن شيخ محمود تضبط كان كم الدقوة هديارة بوسارها حكب الله بيوغندا بوروندي جيبوتي يو كينيا أفرت هذا البواسو مراي كو سعودالك مدحوينه وحوها مد كتحلق عيدا مدى أتميس بلها إنه وصفوا له ودمانا يو مدة حلوة كودي أما مانديت كي يكون شوجين دالك الصومالية مركا مداما عيدا مدى هالقل كودي ودمانا هيدا يعني أما قولها أمنية يو النبضة مدوغ أفريكا أيها وحاوسو تشيدي مدحوين حسن شيخ محمود إن dhammaadka joogitaanka ciidamada admis maadaama uu yahay gabagabo in dalalkii ciidamadu ay ka joogeen iyo dalkii Soomaaliya ee la ilaalinayay ciidamadu ay joogeen in madaxdoodu ay kulmaan oo ay wax maaragtay qorshaha xiga ka wada hadlaan ciidamada marka qaar baa baxaya qaarna way joogayaan sida lagu wado marka dalalka waxa qorshaha ugu muhiimsan uu ahaa dalalka yaani ciidamadu ay ka joogaan iyo dawladda Soomaaliya sidii wax ay ku midaysan yihiin oo yaani siyaasad ahaan iyo ka maaragtay amni ahaanba ay ku midaysan yihiin iyada oo ay jiro in loo gudbo wajiga kale ama hawlgalka kale si looga ilaaliyo meesha muran iyo xogaa is afgaran waa maadaama haddana ay jiraan isjiijiidyo dhinaca ciidamada Itoobiya ay jiraan marka ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mas'uuliyiintii dalalkaas way is arkeen baahida Soomaaliya ay qabtay ka wada hadleen sida ay Soomaaliya diyaarka ugu tahay ciidamada bedelaya in la keeno ayay u soo bandhigtay sidoo kalena yaani de arrimo kale oo si gaar ah looga wada hadlayay yaa iyagu jiray way jaamacu toddobaad mise laba toddobaad ka hor magaalada Addis Ababa waxa ku shiray dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya wasiiradooda gaashaandhigga iyo wakiilada ay soo dirsadeen dawladda Itoobiya ka shirka martigelis Itoobiya fariin bay waday waxay tiri 17 sano la soo dhaaf liig iyo maal baan u horay Soomaaliya haddana waxaan rabnaa inaan u sii dhimanno dalalkiinana aad ku qancisaan caalamka inaan sii joogno meesha ka sii bariisayno hawsha ma la xiriirtaan dabcan waa waxyaabaha ugu muhiimsan weey Itoobiya iyadu danbay leedahay Itoobiya 17 sano iyo hal maalin midna bariskada 17 sano Soomaaliya waxa ma ayna tarin waxyeelo iyo waxay u dhibto mooyaane waligeed Soomaaliya wax ma ayna tarin iyadu laakiin waxay tiraa waa dulmiga fiiri waa dulmi Chinese haysta weey dulmi Chinese haysta weeyaan dulmiga Chinese ka haysta wuxuu rabo ku hadlayaa marka waxay Itoobiya ku hadlaysay iyo nacnacdeeda cidii dhageysanaysa iyada u taala laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay waxay tahay in Itoobiya waxyeelo mooyaane ayna waligeed Soomaaliya irbad dun u galinin hadda kadibna aan laga filaynin wax dan ah oo ay ka leedahay wanaaga Soomaaliyana ma ay jirtay waxay rabtaa Soomaaliya intay kala qoqobto way xaafada u kala qoqobto in ay mid walba meeshiisa ugu taliso ku xukunto laakiin boqolaal wiil baa kaga dhimatay boqolaalka wiil iyada u dhimanayeen waxa ka dilayso Soomaali ma ahayn
iyada u dhimanayeen mooyaane Soomaali uma aysan dhimanaynin oo danaha Soomaalida يعني مرنا بماشى مين يقولين مهمة مركب واحد هاي إثيوبيا وحير بتاعنا ماشى سيجوت سي أيدنا هذا وإلى عشته دولة الصومالية أنا عدو بيوتقانا عيدا كله أو يدا أنا هاينا ماركتا إنه يمدوا ديديسا جارهان دلك أنا كوكنا عسنين وهالقلك أدمس بدل يودن يدو أنا نقطة بتاع صوماليا أنا هل أسكري إنه كتشوجا مرهبته إثيوبيا مركز دناها أيلة هاي وشيدوين كذي هدف كذا ومد عدوى وين صوماليا أي بربور سناتو يدونا مركز دنبه مالن بقيب إلا وريت مال هدي أسورة قش يدا لكن كهر بربور أي سبعة أوكي مدحوين حسن شيخ محمد مركز وحاول السعودي سيدي وحيابها إثيوبيا أي كهميس يدناها أيلة هاي ماشى اللوجا صار لها دلال كم مدوجا أفريقيا محاكو إلى هذا ثم قعود وكوشة قينا يهولجل كسوس عدانا دولة الصومالية درين كذا سيدنا بين له وجود يضع ولبا أي دلال كدرس كعيد مدو كتشوجانا ويران كلابد هالديري أي أركتلا على قبان مركا مدحوني وكوجوليستي دلالكي وبوقدي أركتلا وكم مدوبين هديتها يوغندا هديتها كينيا هديتها جيبوتي انتبه ده واحد صور عنا وبروندي نروح قفبة كجوكتوا بحيام سواء جرا مهمة مركا وحا أي تهاي إن هدفك يوجد لها ما بعد أتمس ما هذا عيا أدمس كدم بوحدا عيا إن أي سي جوجيان عيدا ماذا قار كم إذا دلال كماش كوسوان أنت عن حاجة هالكوها إنه يعني ما نقول هذا يوغندا يو كينيا أو كله إن ويسي جوجيان جيبوتي أيضا ويسي جوجيسا إن بروندي لما هو إنكستون عيدا ما بدن كجوجي دلال كله عيدا ما كإيمانه يرمرك دلال كاس كله وقار واللوجي هاي ومصر بكمله إريتريانا وصورة قل يناسف كهوري كجرتها عندي كله صورة عشان ولا أركيا دي لو بعضنا عيدا ودم بمصر بكيني سبب مع كوا كان يكون يوانا ويبيح مرة مصر بين لو رئيس مصر ما ده مصر ومصر ثم ولا عليها وي إن عندما إثيوبيا وحدود بيانات كان داير أي نلو ذاكتي حوجة يكون تاي 1 كيلومتر كل دو أي كبحان مش مصر سوق وحس سو إعلامين دجال ما وحدود هورت سومالي إثيوبيا إليهن توتري بمجرد كو مركا واحد إثيوبيا إليه هذا وما أنت شقينا يوتشرا هنا مجرو إسنا ماشي كوح أورما هاجوت كوح ذا أورما ذا تنا هذا بوتان يو إن أي سوماليا كلا قوقبان وكان فرصة وقف إذا استان بواركان قشود وحوها إن معقولة سومالي لان أي كوهب سدان كدي بلدان أي كدران كونفور قلبي كوحكتو يعني قاب نوع عسى وحديجين قاب كينا واحد مده هذا إنه نشقينين دمان دمعي هدف كي يوتشيدي على هايان أورداني واقع فشلنتي هذا واحد وبدنا يكون دجال لما يان وهم لبوا معمول إني مدحوا سيجوت كان هرجيسة يا كم بيدبا إني لبوا مدحوا سيجوجان يا هذا وحيكسر أروتي أودي إثيوبيا أوردان يا إن أي محمود دايتو إن سيجرتو مركا هذي أي لبلا كوجوليستو وحاول سوروبي حوجا عيدا معه مدول بقيبة كم ذا إن أي حدودها تشوجان لكن دي سومالي ودل حرام مدح بنان واي حدوده هذا الدل الدولة إذا كانوا قرين هذي سوق شو دولان دجال أو عدان واي مركا دجال كيو إعلامين تيسا يدبات تيسا عيلك إثيوبيا وأنا كبح عن جودها دل كسومالي أسكري هدوك كسو طلابو مركا هو دجال haddii maxaa lafta gareen waan ku soo wadaa haddii amisom laga saaro Ethiopianka ay ka baxaan dawladda Soomaaliya ay sida ku guuleysato ciidamada cusub ee Masar iyo sida ay ku keento ninkii saaxiibka ahaa ee lafta gareen ahaa way dhabo iyo deegaanada koonfur galbeed ee xuduudda ku teedsan ma ku hayn kara Ethiopianka ma lafta gareen hadda waa ina xasan Sheekh Maxamuud isagii jaamba walaal أول هرديه وحي وغير نسيب كيسة أول هو حدوني بها هذا لكن هذا وين حسن شيخ محمود واي بركو ويسبدلك إثيوبيا هنا بحيان
عدة أخرى سبحة ديها أما في صوماليا كلها الله أما في مايها كلها الله أما في حبشها كلها الله وإسجها مهمته معها يعني هبل بالقنعية هبل باكنة هبل باكيرة توبيان كو حيكفي إذا kala qoqobnaanta iyo khilaafka siyaasiyiinta Soomaalida khilaafkii u dhaxeeyay nimanka la yiraahdo Xasan Sheekh iyo lafta gareen meesha waa ka baxay waxa abuurmay khilaaf kale oo u dhaxeeya Xasan iyo Madoobe khilaafka u dhaxeeyaahina isna kulleedii waa iska dhamaan doona ciidanka Itoobiya hadda waxay joogeen gado reeg gado raali kama aha kumana yani umana arkaan si joogitaanka ciidanka Itoobiya inuu sii soconayo Soomaaliya garan haddii ay sii socdo oo isku dayaan inay sii socdaanna xabad baa loola tagayaa waa la isku kaashanaya taa ka kamida dhulka Soomaaliya askari Itoobiyana oo jir kuma sugnaanayo u baxaya waa inuu tago waa inuu meeshu ka yimid aado nin walba gurigiisa aad maxaa ka yaala Soomaaliya Somaliland Somaliland waa Soomaaliya ما مصبح باقي كوها سو يو حيسكو ديان joogitaanka hogaamiye kooxeedyada Muuse waa hogaamiye kooxeed lafta gareen waa hogaamiye kooxeed Axmed Madoobe waa hogaamiye kooxeed dani waa wada hogaamiye kooxeedyo nin Itoobiya ku qanacsan inaan ku qanacsanaynba inay cul yihiin iyo nin dalka Soomaaliya dawlad buu leeyahay hal midowey hal madaxweyne uu leeyahay hal caasimad buu leeyahay halkaas ay taladiisu taala waxa ka sokeeya ee qabqable iyo hogaamiye kooxeeda iyo maamuladan loogu talagalay dawladnimada Soomaaliya in lagu daciifiyo xilligood insha Allah taala waa gabagaba waa soo dhamaanaya Soomaaliyana waxay ku noqon doontaa Soomaaliyadii la yaqaanay oka masuura galba in deegaanada xuduudda ku teedsan ee Itoobiya ka agdhow in ay ciidamada Itoobiya ay baafason ka sameeyaan oo gudaha Soomaaliya 50 kilomitir 20 kilomitir 40 kilomitir ay ku joogi karaan iyagoo horta warban ku sheegay wax xuduud la yiraahdo Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa maanta ma jiraan deegaanka Soomaalidu waa dhul la haysto baay iyo gado iyo hiiraan iyo meelaha ay joogaan iyaguna waa dhul la haysto waa dhul dhamaan Soomaaliya laga haysto laakiin kii ay hore u qabsadeen iyo ka hadda ay joogaan deegaamada u dhaxeeya maxaan ku dhahayto lagu sheegay xuduudda baabarson ma ka sameyn kara ayagu waxay rabaan bay sameeysan karaan sababtoo waa dhul ay haystaan way inta laga kicinayo fartay doona bay ka qorayaan waxay rabaan ka sameeyaan ama baabarson ka sameeyaan ama balaayason ka sameeyaan ama barwaaqason ka sameeyaan laakiin anaga marnaba nooguma diiwaan gashana waa xuduuda oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya laga jeedo xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya waa la yaqaanaa waa kafa iyo wixii ka xageeyay كفن حاجة بطالة فادي سبب أكتر سمعنا كلام هالكاسة ما هالكاسة ما مهمة دواسيدا تيري مهمة دواسيدا حوجا chance كلا يسقى في أي سنة الظروفها هي وقتها عليك اللي يسقى في أي سنة قبل وقتها اللي جوا في استقبال سكون على براه بوشة الظروف بولا جوا في استقبال عازة سؤال الظروف اللي جوا في استقبال يعني حدود هذا وين تقنع qof kasto Soomaaliya waa yaqaan kan aqoonina ana u sheegaya xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya waa kafa buuy markaad joogto Addis Ababa ma qan 80 kilomitir bay ku jirtaa halkaas way xuduudana laakiin wax xuduud oo kale meelahan ku yaala waxay isticmaalkii oo malmalowqay يعني maxaan ku idhaahdaa to suuragal ma aha inaan iyaga toodii aan raacno oo dhahno halkaas xuduud noo ah magacyada loo bixiyay xuduudana loo kala sameeyay waxaan la aqoonin baa laga dhex sameeyay anagi yani waa si xuduudnada iyo jiritaankanaga iyo dadnimadana iyo magaca iyo muuqa iyo maaragtay muhiimadda aan leenahay meesha looga saaray ahay tiina waa ku guuleysteen si ku meel gaara laakiin ma sii socon doontaa ma sii soconaysa insha Allah taala dadkan Soomaaliyeed dulinimo in ku filan way ku soo noolaayeen gunnimo in ku filan way ku soo noolaayeen kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan in ku filan way ku soo noolaayeen in dhulkoodii maanta Oromo hawaysan oo haddana magaalo kasta oo Oromo magaalo kasta oo Soomaali ay leedahay ama deegaanka ha ahaato ama Soomaaliland kale ha ahaatee waxa joogto ugu yaraan waa meelaha ugu yarihiin 20 kun 10 kun oo tuugsanaysa joogto Hargeysa iyo Boorame iyo Garowe iyo Gaalkacyo iyo Burco iyo marka la fiiriyana de waaba kala badhba salaadii markay tahay file bay waxay ugu jiraan dukaamada Soomaaliya garan ayaga oo sida Soomaalida ugu dhex nool aqliga ay ku keeneen Soomaaliya in ay haddana dhibaateeyaan
عقلك أورمada ku jira waa عقل يعني حتى كبير حتى ما قالوا عقلك النوع عاس inkastoo ayna lahayn maxaan ku yiraahdaa todde dad waxa fahmi karaba aysan ahayn oo qof dhintay iyo qof nool ba iyaga aas hadda waxa ugu kala duwan yihiin ma kala gartaan ba qofka dhintay iyo qofka nool ramadu dadka nool iyo dadka socda iyo kuwa dhintay waxa yihiin ma kala garanayaan iska socda way iska socdaan waa dad daadahayo col iyo nabad hadday fahmayaan miyaan oromo u maanta ku qowi lahaa Soomaaliya ayaan rabnaa inaan kala faa'iideyso hadda wasagu waa orome ugu mariyaha naga waxidna cuntada ay cunaan anaga siin jir yaani oxygen ay qaataan inay qaataan Soomaaliya baa sabab ah waliga iyo waaqa qof kisad u korinaysa maalinkii oo wax noqday ee kabaha xidhay duu adigi tabar kale intii uu candhuuf ku tufka war waa wareer laakiin seen oxygen ku siinayno maxay ku noolaayeen oromo maxay ahayd deegaanka soo ku nool oromo maanta ma dhalanin di oromo maanta ma isa dhalanin oromo kuma naas intii Soomaaliya jirtay way soo jirtay intaaso maanta Soomaaliya kama dhex tuugsanayaan kuma dhex noola soo kama dhex bariyootamayaan haddana soo iyaga ina qaniinaya ma tab taasi abadan koodii ahaayeen marka in yar oo tabara heleen oo in yar oo naf ay heleen kuwii dhibaatada ku hayay ee aan uga hiilinayna ee aan ka garab taagnayn maalin walba ka celinayna ma isaadin annaga bayna soo aadeen markaas maxay nala soo aadeen Soomaali abaal baan ku maxay tahay oromo abaalkay ugu yeelan karto naf ilaahay abuuray oo oromo ay abaal ku sheegan karto ma jirto iyada caawimaad baan saacad walba iyada u baahan saacadana iyada la caawinaya laakiin يعني واحد كينيا وعقل حمضة وحوي مركب مهمته waxay tahay oromada meel kaste oo ay joogan waa Soomaali meel ay ku nooshahay laanteed Soomaali ma haddana iyaga qaniinaya marka waxaan leenahay waa la is arki doonaa waa la is baran doonaa insha Allah ta'ala soo socod tamaya waxay joogeen dhex joogan bi warsaarkeena marka aad baxa un baa la jijigana waa laga saaray hadda waliba jijiga sida ugu dhaqsaha badan yaa looga saaray insha Allah ta'ala aad ma maasanta jaamac galad intaas ayaan jecelahay daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyno qodobkeenan intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh